iyadoo ay maanta ku beegneed maalintii koowaad ee ololaha doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye isla markaana munaasabado ballaaran loogu qabtay dhammaan dalka ayaa beerta nuur ee magaalada Ceeri Gaabo waxaa halkaasi ka dhacay fagaare weyn oo dhammaan murashaxiintu ay ku soo bandhigayeen taacududooda taageero waxaana fagaarahaasi si weyn uga dhex muuqday isla markaana uu soo bax ballaaran ka muujiyay murashaxa golaha wakiilada ee gobolka Sanaag Maxamuud Warsame Jaamac oo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa oo wata calaamada libaaxa ay sida hilaaca uga dhex muuqdeen dhammaan taageerayaasha murashaxiinta kale iyadoo ay intaasi dheeraayeen gamaanka fardaha ee lagu galbinayay murashaxa oo ka mid ahaa mas'uuliyiin ka hadashay beerta nuura ee ololaha loo asteeyay ayaa taageerayaashiisa ka codsaday inay codka maalinta 1 bisha May ay ku boobaan calaamada libaaxa ee uu wato. kulmiye wuxuu la saaxiib yahay guusha horu la soo saaxiibay doorashadan maanta isku sidkana waxaynu doonaynaa inuu kulmiye guusha la hooydo oo aanu mar dambeba la soo noqon oo cid dambe guusha daydaydaba la waayo. waxaan rajaynayaa 25 xildhibaan ee ka sharaxan xisbiga kulmiye 13 deegaanka iyo 12 wakiiladuba inay aqlabiyad ku soo bixi doonaan. waxaan aad u hambalyeeynaa madaxweynaha qaranka iyo xukuumaddiisa. waxaan idin sheegayaa astaanteennu waa libaaxa waxa ku ridaysaan libaaxa. waxa kale oo aan aad u hambalyeynayaa oo si gaar maanta u salaamaya isna gudoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan oo door weyn ka qaatay horumarkii nabadda gobolka. Yoon Sheekh Axmed Star TV Ceeri Gaabo.